wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya degmada Boocame ee gobolka Sool ayaa si rasmi ah u sheegaya in ciidamada ugu tiro badan oo ka tirsan ciidanka Puntland halkaasi ay gaareen horena halkaasi ay ugu sugnaayeen ciidamada Puntland waxaana haatan jira warar hordhac naga soo gaaraya degmada Boocame ee gobolka Sool ay si rasmi ah u tibaaxayaan in ay maanta gaareen cutyo farbadan oo ka tirsan ciidanka Puntland horena halkaasi waxa ay dhooltas ciidan ka wada muddooyinkii dambe ciidan ka tirsan maleeshiyaadka maamulka SRM ee Soomaaliland oo hore halkaasi u booqday gudoomiyaha gobolka Sool lagu magacaaban SRM gaar ahaan Soomaaliland wararka rasmiga saaka naga soo gaaraya degmada Boocame ee gobolka Sool ayaa waxay si rasmi ah u sheegayaan in shacabku ay xilligan wala xoogan ka muujinayaan joogitaanka degmada Boocame iyadoo laga cabsi qabo in ciidamada farabadan ee labada maamul ay soo dhoobeen jidaha hore ee degmada Boocame ee gobolka Sool laga cabsi qabo in halkaasi dagaal uu ku dhaxmaro wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Puntland ugu magacaaban ayaa si rasmi ah waxa uu u sheegay isla markaana afka uu ku dhuftay in ay dandaansi ciidan iyo sidoo kale dandaansi dhuleed ay wadaan maamulka SRM ee Soomaaliland isagoo wasiirku uu sheegay in ay xilliga kusoo duuleen deegaanada Puntland ee maamulka Soomaaliland wasiirada badan oo ka tirsan Puntland ayaa si rasmi ah afka ugu dhuftay isla markaana ka hadlay xaaladda Boocame ee ku saabsan duulaanka ay kusoo qaadeen maleeshiyaadka maamulka SRM ciidamada taabacsan wasiirka wasaaradda duulista hawada ee Puntland lagu tooraya isna qaybta warbaahinta xariiqda dhexe kula hadlay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaana uu wasiirku uu sheegay in ay dandaasigan ay wadaan maamulka SRM ee Soomaaliland uu yahay dandaasi aan xilligan loo baahnayn waxaana jidaha hore ee degmada Boocame ee gobolka Sool xilligan loo dhoobay isla markaana la geeyay ciidamada ugu tiro badan oo ka tirsan ciidanka Puntland ku sugnaa deegaanada Fadhiyaale iyo sidoo kale jidaha hore ee Tukaraq wararka rasmiga ah oo maanta naga soo gaaraya degmada Boocame ee gobolka Sool waxay si rasmi ah geeska kale ay u sheegayaan in halkaasi laga cabsi qabo in dagaal ku dhaxmaro ciidamada ugu tiro badan ee halkaasi labdoonkii dambe lagu soo dhoobayo walow ay jirin in saraakiil rasmi ah labada dhinac oo ka hadlay xaaladda degmada Boocame ee gobolka Sool waxa si rasmi ah u dawacnay Allah qadka telefoonka kula xiriirna qaar kamid ah wariyaasha ku sugan degmada Boocame isla markaana loo suurtagali waday warar hordhac ah soo gaaray saaka subaxna ayaa waxay si rasmi ah u sheegayaan in laga cabsi qabo halka dagaal inuu ka dhaco maadaama ay jiraan in labada maamulba halkaasi ay ku sii dhoobayaan ciidamada u tiro badan subaxnimadii saaka ayaa la sheegay ilaa aroortii hore inay gaareen ciidamo farabadan oo ka tirsan ciidanka Puntland oo fariisinkoodu ahaa Fadhiyaale isla markaana halkaasi u gaaray in laga saaro haraadiga ah maleeshiyaadka maamulka SRM ee Soomaaliland ee haatan soo gaaray degmada Boocame ee gobolka Sool halkaasna ay ilaa tignika farabadan la arkay ku soo qorayso oo ka tirsan gaashaamo isla markaana ciidamadan ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka maamulka SRM ee Soomaaliland ay halkaasi gaaray ilaa haatan wali ay ku sugan yihiin maadaama ay ciidamada dib uga soo laaban ee ka tirsan Boocame degmada Boocame ee gobolka Sool ayaa waxa gacan ka intooda inta badan lahayd ciidamada ka tirsan Puntland oo isla markaana ilaa haatan ay ku sugan yihiin qaybo kamid ah ciidanka Puntland gaar ahaan degmada Boocame ee gobolka Sool waxa ciidamada halkaasi loo geeyay dhaxaadinta labada beelood ee hore dagaalka halkaasi ugu dhaxmaray ee beelaha Xasan Gaasi sidoo kale Ciise Maxamuud oo halkaasi dhul daaqsimeed farabadan isku haya waxaana jirta in ay iyaguna maleeshiyaad beelayada ee labada dhinacba ilaa haatan ay hubeysan yihiin ayadoo waanti nabadeed ee labada dhinac ee beelood xilligan la waday xaqaq siyaasadeed xoogan xilligan soo gelinayaan maleeshiyaadka maamulka SRM ee Soomaaliland wasiirka wasaaradda duulista hawada ee Puntland lagu toor ayaa waxa afka ku dhuftay in ay Soomaaliland daasiga ay wada uu salka ku hayo in labada maleeshiyaad beeladiya ee ku sugan degmada Boocame ee gobolka Sool ee hubeysan in afka la isku geliyo haddii halkaasi uu ka dhaco dagaal ay halkaasi oo khasaare badan ka dhalan karo waxaana ay wasiirada ka tirsan Puntland ay si rasmi ah u sheegeen in daasiga ay wadaan maamulka Hargeysa ee Soomaaliland in xilligan ay ka daayaan iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka ku dhaqan degmada Boocame ee gobolka Sool insha Allah wararkeena dambe ayaa ku daawan doonta wax ka soo kordha xaaladda degmada